السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جراري جليع وادي السلام دمانتين. maanta waxaan gacanta ku hayaa diidiin reerena jareerta waxay dhahaan diidiin dadka faradheerta ama jilaacdana waxay dhahaan diin diidiinka ilmoogiis daymooda ki koriye yani waxa la dhahaa hooyada diinka ma siiso naas uma balaha naas laakiin cunugeeda si ay u quudiso indhaha u saartaa kadibna sidaas ayuu inta ku cunaa diinku isaga dhan waa wada baruur hilib macaan waaye waxaa la sheegaa sheeko waxaa jirto dhahayso hadda ka hor waxaa u tashatay habar dugaag oo dhan oo shimbiruhu ay ugu horeeyaan waxaa lagu ballamay in diinka la cuno oo sida cuntadii oo kale loo cuno maadaama isaga dhan uu wada baruuran yahay marka waxa la sheegaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii diinka loo tashaday mid kamida xayawaanaadkii waxa uu ku yiri diinu waa lagu tashadayo in hilibkaaga la cunaa loo tashaday markaas mid kamida wuxuu yiri oo meesha la igu tashanayso Ilaahay ma joogin ayuu diinkii ku jawaabay dabadeedna waxa la sheegaa in qoloftan adag Ilaahay uu ku sameeyay Ilaahay amarkiis qoloftan waa sida dhagaxa oo kale mar walba oo weynaado way la weynaataa isagu markuu weynaadaba qoloftu way sii weynaataa sida jirkiisu u korayo ay u korayaan wax kasto aad ku dhufato qoloftan ma karaayo markii uu cabsado fiiriyad cabsiyan dareensiinaya uu xaroonaya qoortu xareysanaya midda mar kasto uu cabsado ama uu khatar dareemo qoortu xareysanaya hadda warkaygu dhageysanaya qoortu soo baxsanaya wuxuu leeyahay ninkan jareerka muxuu sheegaya hadii warkaygu fahmi waayana de madaxiisu ceshanaya lugihiisa waa kuwan sidaas wuxuu leeyahay dib ama sayn dambe oo yar ayuu leeyahay marka isaga oo dhan markuu u baahdo wuu is wada xareynaya haye mujidan waa nool yahay diidiin la dhahaa ayay badana wuu galaa waxa loo yaqaanaa kuwo markuu badda ku jiro ama diinbadeed ma qaniina madax ma ka qaniina laakiin isaga miyo ogolaanay oo xareysanaya qoortu xareysanaya kan faradheeras la soo dhaqmo maleena waayahay waa ma santiin jareeri jileecow aan ilaalino xayawaanaadka oo dalkeena waxaad moodaa inay ka sii dabar go'ayaan waa dilnaa waa dhibaataynaa markaan sidan oo kala aragno aan dhaqaalayno aan ilaalino oo aan ku dadaalno inaan ka shaqeyno sidii ay nolol wanaagsan ku heli lahayn waayo noloshooda qayb ay ka tahay jiritaankeena xayawaanaadku wuxuu Ilaahay annaga inoogu abuuray mararka qaar inaan ku indha doogsano mararka qaarna inay noo noqdaan calaamado sida diinkan oo kale waa calaamad mararka qaarna waxay naga cunaan annaga waxyaabo annaga dhibaato nagu noqon kara ay xayawaanada qaar annaga naga cunaan waa ma santiin jareer jileecow waa idin salaamay bye bye